Anigoo ka jawaabaya dhowr su'aalood oo ku saabsan in xubinta ragga la dheerayn karo ama la weynayn karo, jawaabtu waa haa. Laakiin sidee? Fiidiyowgan waxaan idinkugu soo bandhigi doonaa qaababka guska loo weyneeyo ama loo dheereeyo hadday ahaan lahayd qaab dabiici ah, qaab aad isticmaalayso qalabyo aan waxna jirkaaga u dhimin, iyo ugu dambayn qaabab ku saabsan qaliinno. Waxaan jeclahay in aan marka hore xasuusiyo akhristayaasha in wax kasta oo internetka lagu soo daabaco in aysan run u qaadanin. Waan ognahay in internetka ay ka buuxaan kumanaan xayeysiin oo ka hadlayo sida loo xoojiyo ama loo weyneeyo xubinta ragga iyagoo ka hadlayo kaniiniyaal, kareemyo la marsado, qalabka lagu soo jiido xubinta taranka vacuum, iyo qaabka gacan ku lisidda ama tuujinta xubinta taranka ama qaliin lagu sameeyo kadibna qofka uu sidii uu rabay uu noqonayo iyadoo wax dhib ah uusan la kulmin. Laakiin arrintaasi waxna ma ka jiro. Haddii aan ku hormaro waxyaabaha sida dabiiciga aad u samayn karto si aad u ogaatid cabbirka saxda ee xubintaada waa: 1. In aad xiirtid tinta biskinta ama shuunka, maxaa yeelay tinta badan waxay u ekaysiisaa xubinta inay gaaban tahay. 2. Haddii aad cayilan tahay, isku day in aad miisaanka dhinto, waayo 35 boon ama 15 kiilogaram aad iska dhinto waxaad helaysaa 1 inji ama 2.5 sentimitir. Maxaa yeelay caloosha iyo dufanka ka hooseysaba waxay u ekaysiiyaan xubintaada inay gaaban tahay. Ku dadaal caafimaadkaaga guud, samey jimicsi joogto si aad niyadda kuugu dhisanto oo aad ugu ekaatid qof soo jiidasho leh, taasoo oo ka qayb qaadan karto in kalsoonida ay kuu siyaado. Maxaa yeelay waxaa la ogaaday dadka arrintan ku welwelsan sababta ay xal u raadinayaan in ay tahay si ay u heli lahaayeen kalsoonida ka maqan. 3. Ma jirto cunto u gooni ah kobcinta xubinta ragga oo loogu talagalay in ay weynaysiiso ama dheerayso. Waxaan aragnaa Soomaalida badan oo aaminsan sida saliid saytuunka, tuunta iyo ukunta inay guska weynayso, waxna ma ka jiro. Haddaba aan ugu dubno qaybteennii qaabka guska loo dheereeyo ama loo weyneeyo adigoo qalabyo ku xiranayo. 1. Si aad u weynaysid ama xaaskaaga ay u dareento wax weyn inuu galay, waxaad isticmaali kartaa penis sleeves. Penis sleeveskan wuxuu ku siinayaa gus dheeri, kaasoo kuu sahlayo inaad gaarto meeshii aadan gaari karin. Sidoo kale waxaad isticmaali kartaa faraantiga goomaha ah kaasoo ku siinayo cufnaan iyo weyni. Run ahaantii, qaabkan wuxuu ku habboon yahay dumarka ilmaha badan dhalay ama ragga odayaasha ah oo sidii yaraantoodii u kacsan karin haddana rabaan inay galmada cusbo u yeelaan. Hayloobin dumarka marka ay dhalmo gooyaan kacsi xad dhaaf ah in ay yeeshaan. Intaa kadib aan u gudubno qaybteennii ugu dambeysay ee qaabka qaliinada. Haddaba waxaan mid uga hadlayaa faa'iidada iyo dhibaatada kala duwan ee laga filan karo siyaabaha wax lagu beddelo xubinta taranka. 1. Qaliinka lagu weyneeyo xubinta taranka. Qaliinkan sida loo sameeyo waa in jirka laga soo gooyo dufan ama xayr iyadoo lagu tolo xubinta si ay ugu ekaato inuu weyn yahay ama cayilan yahay. Tani dhibka ay keento ayaa ah in meeshii laga jeexay xubinta haar yeelato oo markii xubinta ay kacdo kadkaduud iyo xanuun ama qalooc xubinta ay yeelato, marmarka qaarna caabuq ayaa ku dhasho meesha qaliinka ah. Waxaa jiro qaliin kale oo xubinta lagu dhex tolayo wax injir ka samaysan si uu u ekaado wax weyn oo kale. 2. Qaliinka lagu dheereeyo xubinta taranka. Xubinta ragga waxaa jirka ku hayo seed dheer oo lafta biskanta kula dhegan, waa seedka xubinta kor u haya markuu kacsan yahay. Qaliinkan waxaa lagu gooyaa seedkaas kadibna xubinta horay ayay u soo dhacdaa oo way soo laalaadsantaa, waxayna u ekaataa inuu weynaaday. Laakiin dhibka ka dhasho ayaa ah in hadduu qofka kacsado in xubintii ay madaxa kor u qaadi weyso. Ragga sidaan sameeyo ayaa galmada dhib ku qabo, kumana faraxsana qaliinka ay galeen iyagoo aanan ka fekerin waxa laga filan karo. 3. Qaliinka lagu saaro baruurta. Waa qaliin lagu sameeyo caloosha hoosteeda iyo lafta biskinta korkeeda si baruurta looga saaro uu qofkana u arko xubintiisa inay dheer tahay ama dheeraatay. Qalinkan wax isbeddel dhinaca cabbirka kuma samaynin xubinta, laakiin qofkii ayaa aaminsan inay u dheeraatay, waana nooc kalsooni soo cesasho ah.
Dhakhaatiir badan waxay aaminsan yihiin dadka ay ka dhaadhacsan tahay in xubnahooda ay yaryihiin oo qasab ay tahay in ay wax ka beddelaan ay u baahan yihiin inay la kulmaan dhakhtar xagga dhimirka ah si loo fahmo asbaabaha ku kalifayso iyo qaabka ay u fakarayaan iyo waxa ay damacsan yihiin inta aanan lagula talin wax qalliin ama daawo ah. Talo: ragga ku dhiban arrintan waxaan kula talin lahaa marka hore in ay dhakhtar u tagaan oo ay ogaadaan in ay dabiici u tahay xubintooda iyo inay cillad ka jirto loogu sheego. Midda kale, xubin yarida kuma xirna in aad haweentaada uurayn karto iyo in kale. Haddii aad aaminsan tahay in aadan uur u yeeli karin xaaskaaga mustaqbalka, iyadana in laga dhaadhiciyo ayay u baahan tahay ee takhtar la xiriir.